aad iyo aad waxaan uga tiiraayensanahay oo uga xunahay waxyaalaha ugubka oo dilka iyo dhibaatada ku soo laabatay galmudug gaar ahaan magaalada Gaalkacyo. magaalada Gaalkacyo 40 cisho la soo dhaafay waxaa lagu dilay 3 sargaal oo waaweyn. haddana xalay nasiib darro dad wax magarataa ayaa dad shacab ah laayay. marka hore dhammaan geeriyoodhan aad iyo aad baan uga xunahay. waxaan ka tacsiyeynaynaa geeridaas oo dhan. intii dhimatay allah u naxariisto, inta nool alla ha badbaadiyo. kuwaa hore suspect badan qaar baan haynaa dadka dilay oo aan ogahay in la hayo. kuwaan hadda xalay wax laayayna qaar badanna waa la qabtay. cadaalad ayaan horkeeni doonaa sida ugu dhaqsaha badan. xagga dhuusamareeb wixii ka dhacay ayagana aad iyo aad baan uga xunahay. mid wax magarata ah oo runtii nin aan haysan wax position ayuu ahaa. ninkii yiri dadku magaalada ka baxo nin sargaal oo caadi u ahaa. cid la ogeyd iyo cid la joogta midna lama arko. inkastoo maaragtay madaxa xukuumaddu arrintaas uu ka tacsiyeeyey kana hadlay. isla markaas ayaa miyiga magaalada dhuusamareeb 10 beri 4-5 beri la soo dhaafay waxaa ku dhintay dad ka badan 10 qof. annagu aad iyo aad baan labadaas sano u ladnayn xagga amniga iyo nabadgelyada. waxaad moodaa in nala soo galay. ilaahay hanaga najeeye waxaana soo galay. waana dadaalaynaa. dadka dambiilayaashana waxaan aad iyo aad uga shaqaynaynaa in la soo qabto oo cadaaladda la geeyo. horena waa u samaynay, haddana waa samayn doonaa. haddii wax siyaadahi yimaadaan oo sidaan oo kale wax u soo kordhaan dadka waa la wacyigeliyaa. dadka reer galmudug waxaan leeyahay nabadiina ilaashada. waxaad ku nooshiin waa nabadda. nabad darrana waa taqaaniin dad loo sheegaya maahid.